xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya una weheliyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa maanta deeq lacageed gaarsiiyay qoysas ku tabaalaysan inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Sarkuusta. Dadkani tabaalaysan ayaa maalmihii ugu dambeeyay xaaladda ay ku sugan yihiin si dhammaystiran uga hadlayay TV-ga caalamiga Universal oo isagu isku xilqaamay in xanuunka ay ku nool yihiin uu la qaybsado. xildhibaanadani ka socda baarlamaanka Soomaaliya ayaa aad uga naxay xaaladoodii nololeed iyagoona markii ay gaareen kaamka ay ku jiraan mid xaaladoodii nololeed uga wareystay waxa ayna goobta ay qoysaskani duruufaysan ay ku guddoonsiiyeen lacag dhan 60 milyan oo shilinka Soomaaliga ah oo iyagu si gaar ah isaga soo aruuriyay waxayna mid ay u guddoonsiiyeen qoysaskani tabaalaysan oo lixaadkooda oo sanataam ahayna waxaana loo jeeday hablaha ka tirsan baarlamaanka oo gacanta u gelinaya qarashaadkii ay iska soo aruuriyeen. Intaasi kadib waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanadii baarlamaanka ka socday ee maanta halkaasi booqday isla markaana gargaarka lacageed gaarsiiyay. waxaana keenay markii aanu ka daawanay TV-ga Universal dibkii haystay ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaan isku xilqaamnay haddaan nahay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya in aan wixii tabartayada ah walaalaha iyaga Soomaaliyeed aanu la soo garab joogsano. wasiirkana waxaanu u soo kaxaynay in maadaama wasaaradda ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha in ummadda Soomaaliyeed wixii daryeel ee yaala loo keeno dadka baahan ee walaalaheena ee qaar ilaahay laxaadkoodii ka qaaday arkaysaan. gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa iyagana waxa ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiintii meesha ka hadlay. arrintaas ayada ah waa sii wadi doonaa waa xoojin doonaa jaabkanaga ayaanu ka caawin doonaa. waxaa kaloo rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheegno in dareenka xaaladda kaamkan daryeel ee dhoolayaashii curyaamiinta ay ku sugan yihiin iyo dadka barakacayaasha ee lixaadkooda waayay in baarlamaanku uu xil gaar ah iska saaray wasaaradihii ay qusaysayna uu ogeysiiyay. waxaa xiga intaas aan rabnaa hay'adaha gargaarka oo runtii dalka jooga oo dadaal fara badan wada ayagan waxaan ugu baaqaynaa si degdeg ah in meelahan iyo meelaha la midka ah soo gargaaraan oo adeegyada maanta ay u baahan yihiin. hadda kaamkan oo kale dadka ku nool waa dad indhooliyaal agoonley iyo dad naafa iyo dad kale oo muxuu ahaay kala duwan oo barakaciyaal ah ma haystaan musqulooyin ay galaan 200 oo qoys ku nool hal musqul baa ka dhaxaysa. xubnaha xildhibaanada ah iyo waliba wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa waxa ay booqdeen xarunta agoonta ee hay'adda Maamacaasha Foundation halkaas oo lacago dhan $200 ay ku guddoonsiiyeen Macalin Nuurow waxayna xildhibaanadani ay lacag gargaar ah oo dhan 4 milyan oo shilinka Soomaaliga ah ay ugu deeqeen caruurta agoonta ahi ay gacanta ku haysa hay'adda gargaarka ee Maamacaasha. Faadumo Axmed Cismaan oo ah wakiilka hay'adda Maamacaasha oo lacagtaasi la guddoonsiiyay ayaa la ilmeysay sida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee isugu xilqaameen inay garab taagnaadaan dadkoodii Soomaaliyeed. aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay maadaama maanta kuleejkii agoonta Maamacaasha Foundation inoogu yimideen xildhibaanadii wasiiradii dowladda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. waa markii ugu horeysay أنا قبل دبونا. kadib doodii barnaamijka ra'yiga ee ka baxay TV-ga Universal toddobaadkan iyo waliba silsiladaha warbixinada bani'aadantinimada ku dheehan uu baahinayo TV-ga caalamiga Universal ayaa waxa ay suura gelisay in mas'uuliyiin badan iyo waliba ummadda Soomaaliyeed inay isku xilqaamaan wax u qabashada hooyooyinka caruurta iyo waliba waayeelka ku dhibaataysan kaamamka ku yaala inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho.